وزير ku-xigeenka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Aadan Dhuubo iyo mas'uuliin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeeray kawaanka Summit oo kamid ah goobaha lagu gowracayo udxiyada si loola socdo iyo in la hubiyo xoolaha la gowracayo. wasiirka wafdigiisa ayaa mid u kormeeray goobaha xarunta ay ka kooban tahay waxaana ay bogaadiyeen sida ay u hubinayaan badqabka iyo sidoo kale in la marsiiyo shuruucda islaamka iyadoo looga faa'iideynayo dadka danta yar. dhammaan gobolada dalka ayuu ka socdaa mashruucan lagu gowracayo kumanaan xoolaha oo loogu talagalay 3 cisho ah ee maalmaha ciida Carafo sida uu sheegay Cabdifataax Aadan Macalin madaxa hay'adda Qadar Jarati ee Soomaaliya. dabcan mashruucan halkan aan ka daafureyno wuxuu ka socdaa qaybo badan oo Soomaaliya sida magaalada Muqdisho maanta joogno Baydhabo, Kismaayo, Beledweyne, Gaalkacyo iyo Hargeysa. waxaan intaaba wada gaarsiinaynaa hilibkii udxiyada mise xoolihii udxiyada waan ugu talagalnay qoysaska u baahan xilligan adag ee Soomaaliya jooga. agaasimaha guud ee wasaaradda waqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Faaruq ayaa ugu mahad celiyay dadka muxsiniinta ee u gargaaraya dadka danta yar. aadan ugu mahad celinayna runtii hay'adda Qadar Jarati iyo hay'adda Manhal iyo dhammaan hay'adaha kale inta runtii meelo kala duwan ku qalaayo udxiyada si loo gaarsiiyo dadka runtii mudan muxuu ahaayay fuqarada iyo magaranaysaay agoonta iyo dadka la midka ah waxaan rajaynayaa insha Allah taala in loo gaarsiin doono sida loogu talagalay inay u gaari doonto hay'adahan ay ka mid yihiin runtii mahad gaar ah ayaan u soo jeedinaynaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Aadan Dhuubo ayaa ku dhiirigeliyay hay'adda sida ay u gargaarayso dadka danta yar u baahan caawinaadda. maamulka hay'adda runtii waxaan ku amaanaynaa shaqo wanaag iyo hawsha ay hore u wadeen in mataqaana kulliba ayado ah maslaxa ummad iyo mataqaana gargaar ummadeed iyo waqti loo baahnaa waqtiganba aad iyo aad baan waxaan leenahay kulliba insha Allah waxay noqon doontaa mid taariikhda aad ku gashaan mid kulliba annagana aan dhiirigelin dhinac kasta ay noqoto annagoo aan marraba iloobayn inaan la xisaabtamayno oo xisaabtan la'aan aysan noqon doonin mataqaana kuwa sida mugdiga u shaqeynaya. wasaaradda waqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay ilaa iyo 12,000 oo xoolo ah oo udxiyo ah la gaarsiinayo guud ahaan dalka kuwaas oo lagu caawinayo dadka danta yar u baahan gargaarka. Cabdiqaadir Shacab warbaahinta qaranka Muqdisho.